wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay barnaamij ay ku sheegtay inay ku ururin doonto xogta Soomaaliland. Wasiirka wasaaraddaasi Yaasiin Maxamuud Xiin Faraton ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulankan iyo shirkan ay ku qabteen magaalada Hargeysa. Shirkan maanta halkan ka furmay wuxuu shir dawladdu qabatay oo ay hogaaminaysay wasaaradda arrimaha dibadda waxaana markaan soo koobo uu ku saabsan yahay sidii xogta iyo macluumaadka Soomaaliland ka jira loo ururin lahaa loona midayn lahaa dalkeena xogo kala duwan baa laga bixiyaa macluumaad kala duwan baa laga bixiyaa haday dalka sidoo guud ahaanba sidoo yahay dalku dhismihiisa iyo bedkiisa iyo guud ahaan sidoo yahay macluumaad kala duwan baa laga bixiyaa waxa gudihiisa ka jira dadkiisa dhaqankiisa dhaqaalihiisa mataqaanaa dadkiisa macluumaad kala duwan iyo fikrado aan maxaa tirooyin aan islahayn baa laga bixiyaa ujeedada shirkan wuxuu ahaa sidii macluumaadka loo baari lahaa wixii aan la ogeyn wixii la og yahayna loo midayn lahaa geesta kale wasiirka warbaahintu wax ka weydiisay mas'uuliyiin ka goostay Soomaaliland oo ku biiray Puntland xaaladda gobolada bari ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka Puntland oo hadlay oo Soomaaliland fariin u diray ayaa guud ahaanba wuxuu ka gaabiyay oo ka gaabsaday inuu jawaab ka bixiyo arrimahaasi kalo loo baahan yahay in halka ka idhaha ma jirto intaas okay laakiin wasiir wax inta waxaana xusid mudan in 5 wasiir in ka badan oo ku sugan halkan oo Hotel Mansour oo warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso arrimahaasi iyo xaaladaha gobolada bari ee guud ahaantoodba ka gaabiyeen وخضر إسماعيل محمد خضر دنبال وركب مقبهية عن قبض عصنا 4 TV Hargeysa